السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada channelkan cusub ee hagaha adduunka. waxaan ka hadli doonaa maanta mowduuc ku saabsan macdanta gemstoneska, mineralska iyo rockska intaba insha Allah. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sar kambalaalka riixa doona ku furayn. rockstoneska ugu qaalisan caalamka. tanzanite wuxuu ka mid yahay dhagaxyada naadirka ah ee ilaa hadda caalamka la raadiyo, kaasoo laga helo wadamada qaar kaliyeeta. blue violet waa erey cilmiyeedka dhagaxan, kaasoo loogu magac daray wadanka ugu badan ee laga hela ee ah qaaradda Afrika, wadanka Tanzania. dhagaxan markii ugu horeysay waxaa helay Manuel de Souza oo ah u dhashay wadankaas markay ahayd 1967. inta badan waxaa laga helaa Mineral Voltavis urta Kilimanjaro ee Tanzania. dhagaxan naadirka waxaa lagu kala gataa halkiisa karad $600 ilaa $1,000 oo karadan ku micneeyay halkii karad waxaa lagu qiimeeyaa 0.2 gram. Graphite waa dhagax aad u naadir ah oo aad u qaaliya. dhagaxan markii ugu horeysay waxaa helay psychologist u dhashay dalkaasi Australia oo lagu magacaabo Conte Charles Richard Taff. markay ahayd 1945 isagoo ku sugnaa dukaankiisa kala iibinta macdanta Mineral Timeska ee magaaladaasi Dublin, xarunta dalkaasi Ireland. inta badan dhagaxan waxaa laga helaa xarunta Ireland iyo Tanzania, Sri Lanka, Ireland iyo Tanzania. dhagaxani qiimihiisu wuxuu gaaraa $2,500 oo karad. black opal dhagaxan waa dhagax naadir ah oo aad u caan ah oo leh kalarad aad u fara badan. black waa madowgii, opal waa nashqadii nacam, maadaama uu yahay kalarka aad uga dhex muuqanaya madowga. sidaas ayaa loogu magac daray black opal. dhagaxan waxaa inta badan laga helaa wadanka Australia. black opal ama ku simaneeye waxaa loogu magac daray qaranka wadanka, maadaama aad u ugu badnayn caalamka. dhagaxan waxaa lagu kala iibsadaa $2,300 halka karad, ilaa kuwa ay tayadiisu yihiin 10,000 oo karad. halkii karad dhagaxan wuxuu aad ugu eegyahay kalarka buluug, wuxuu shabahaa blue sapphire. waa dhagax aad u naadir ah, waxaa loogu magac daray gobiga Sabenito ee dhex mara gobolka California. dhagaxan waxaa laga helaa wadamada Japan, Australia iyo weliba Romania. dhagaxan waxaa lagu kala gataa qiimo jooga $4,000 halkii karad. beetle waa dhagaxa aadka u naadirka, waxaa laga helaa buuraha wahwaa ee gobolka Utah ee dalka Mareykanka. waa dhagaxa aadka ugu tayada sareeya ee laga helo buuraha wahwaa. haddii aan la qorin quruxdiisu aad uma sii muuqato, balse laakiin waa dhagaxaanta aadka ugu yar caalamka oo dhani, aan aadka loo helin eena ku badnaynba dunida oo dhan. dhagaxan wuxuu gaadhaa qiimihiisu $10,000 halkii karad.
alexandrite dhagaxan waxaa loogu magacdaray caalimo dhashay dalkaasi Ruushka oo lagu magacaabo Tsar Alexander II. astaan wuxuu leeyahay inuu qaato kalaro badan, waxaana uu qaatay naanaysti ahayd Emerald by Day, Ruby by Night, oo laga helay buuraha Ural markii ugu horreysay 1830 ee Ruushka. xilliyadan dambe ayaa laga sameeyay qodaallo laga helay wadamada Brazil, Sri Lanka iyo weliba bariga Afrika. dhagaxan lagu qiimeeyaa lacag gaadhaysa $12,000 halkii karat. wuxuu ka mid yahay dhagaxaanta aadka u naadirka ah ee afarta gees lagu helo ayagoo wareegsan. dhagaxa wuxuu ka mid yahay dhagaxaantii aadka loo qiimeyn jiray ilaa qarniyadii naga horreeyay ee aadka u qiimeyn jireen. wuxuu aad uga badan yahay waddanka Myanmar. wuxuu gaadhaa qiimihiisu $30,000 halkii karat. Graphite dhagaxan wuxuu si muuqda safka hore uga jiraa macdanta aadka u qaaliga ee naadirka. dhagaxan waxaa la helay markii koowaad 1967 waddanka Australia. kale waxaa laga helaa wadamada Greenland, Madagascar iyo weliba Sri Lanka. taasi hoos ma dhigayso naadirnimada dhagaxani. tirada qiimihiisu waxay gaadhaa $35,000 halkii karat. Benite dhagaxan midabkiisu waa orange, waxaana laga helay markii ugu horreysay waddanka Myanmar ee 1950. nooc oo ka mid ah dhagaxan ayaa ilaa hadda la sheegaya inay jiraan jiritaankooda. taas uma dhigayso hoos inta uu ku fadhiyo qiimihiisu, maadaama la ogyahay dhagaxa jiritaankiisu inuu jiro. qiimaha kala iibsiga suuqu hoos uma dhaco ilaa wuxuu marayaa hadda $60,000 halkii karat. Pink Star Diamond waa dhagax aadka ilaa hadda ugu naadirsan uguna qaalisan caalamka oo dhan. ayaa ilaa hadda ah dhagaxa ugu qaalisan caalamka. wuxuu gaadhayaa halkiisa karat $1,208,000